Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meer Makraan, mas'uuliyiinta maamulka degmada Jowhar, taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabelle, iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle oo ay ku jireen xildhibaano ayaa kormeer waxa ay ku tageen tuulada Moyko oo webiga Shabeelle fatahaad uu ka geystay, gaar ahaan goobta webiga uu ka fatahay, waxayna geeyeen jawaano iyo tiirar loogu talagalay in lagu xiro, waxayna rajo wanaagsan ay ka muujiyeen in dhowaan lagu guuleysto xirista buuqdan ka fatahday tuulada Moyko oo khasaare kala duwan u geysatay dadka beeraleyda ah ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle, waxaana biyahan ay baabi'iyeen dhul beereed aad u ballaaran oo ay ku beernaayeen dalagyada qaybahooda kala duwan, waxaana sidoo kale ay la kulmeen dadka deegaanka oo ay kala hadleen xirista goobtan fatahaadda uu ka sameeyey webiga Shabeelle. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, Hirshabelle TV, magaalada Jowhar.